shir ballaaran oo bisha 14 bishan lixaad lagu qabtay gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco shirkaasoo ay ahayd xoojinta nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada iyo kaalinta ay ku leeyihiin madax dhaqameedku nabadda dalka. shirkaas oo ay ka soo qayb galeen gobollo fara badan oo ay ka mid yihiin gobollada Sool, Sanaag, Saraar, Oodweyne, Togdheer, Saaxil iyo Gabi. isla shirkan oo kalena hore lagu qabtay magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama oo ay gobollada inta hareeyeen ka soo qayb galeen lagana hadlayay sii xoojinta nabadda Somaliland iyo sidii dibadda loogu aasi lahaa iyo waxyaabaha ka hor iman kara sidii looga horqaadi lahaa. falanqayn dheer ka bacdi oo runtii shirka la isugu yimid oqaasha salaadiinta ururada bulshada oo laga soo wada xulay dhammaan gobollada waxaa ka soo baxay go'aamo wax ku ool ah kadib markii dood dheer laga galay. qodobada la isla qaatay in dalka laga fuliyo si ammaanka loo adkeeyo dhidibka loogu aaso waxaa ka mid ah qodobka koowaad in dadka wax dilay ee aan lagu heshiin in diya la kala qaato la mariyo qisaasta sharciga ah ayaa qodobada la isla qaatay. laba in la fuliyo go'aamada garsoorka iyo maxkamadaha ee fulinta sugaya ee taagan maanta. saddex in aan garab la siin dambiilaha wax dila ee caadaystay inuu markuu waxyeeleeyo qof islaama dabeedna uu beel dabada geliyo ayaa waxaa lagu heshiiyay inaan dambiilaha wax gacanoo la siiya jirin lana qarinin. qodobka kale in cid kasta oo hub kala hor timaada ciidamada amniga iyagoo fulinaya howlgal sharci ah ee ku waxyeelooba ama ku dhinta inaanu haba yaraatee wax magdhow ah aan lahayn cid loo raacayaana aanay jirin waxyeelada soo gaadhay dambiilaha hubaysan. shan in ciddii gacan siisa gacan ku dhiglaha ama dambiilaha iyo cid kasta oo sharciga ka hor timaada uu la mid yahay ruuxii faldambiyeedka geystay. shantaa qodob waa shantii la isku raacay. isla markaa waxaa raaca soo jeedin ay soo jeediyeen madaxda dhaqanka iyo kalawadayaashu ee shirweynaha ka qayb galay waxaana laga gaaray go'aamada hoos kusoo qoran iyagana in la dardargeliyo sugidda ammaanka iyo waxqabadka iyo baahiyaha ka jira gobollada bari Sool iyo Sanaag. laba in la tayeeyo tababarna la siiyo ciidamada amniga si loo helo cadaalad sugan iyo ciidan tayo leh. saddex in lagu fuliyo gacan ku dhiiglayaasha ku xukuman dilka ee ku xidhan jeelasha ee arrimahoodu dhammaadeen si taasoo wax weyn ka taraysa amniga oo ilaahay yidhi inna fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab. taana waxaa la soo jeediyay oo la isla qaatay in ninkii dambiilaha ah ee dadkii muxuu ahaayey uu wax ka dilay ama ehelkii dambiiluhu ay ku heshiiyeenna waa halkeeda kiisa lagu heshiiyo inaan mag laga qaadan ee la dilo in aanu noqon nin muxuu ahaayey iskaga jira xabsiyada ee uu qisaastii ilaahay lagu qisaaso uu jideeyey ayaa taana la isla qaatay. waxaana runtii halkan aan jeclan uga soo jeediyo mahad ballaaran iyo bogaadin bulshada reer Somaliland waxgarad iyo cuqaal salaadiin
ganacsato dhammaantood sida qiimaha badan ee ay go'aamadan noola qaateen